القلوب دو علم النفس وحكا ورمو يهي نفس بن آدم كي يسار الله حصيليه إلهي القرآن كي سوحي نوغة الماميين ألا حسكي يويندي سحسوس سيدة يا أعماش الصالحة سمين تودي بط قود إنا يتهيوح قلبي وقفك بن آدم كي كتبه بل إيه waxaan jeclahay inaan tajribo waa idin sheego waxa jira maanta jirka bini aadamka waxyaabo lagu ogaaday waxa kamid ah hormones inuu soo daayo waxay ku tilmaamaan dheecaamo ifraazat dheecaamada jirka bini aadamka soo daayo way tiro badan yihiin dheecaamada jirka bini aadamka soo daayo waxa kamid ah bay yiraahdaan dheecaamo ay hadda u bixiyeen morfinatu dimaag ay af carabiga ku yiraahdaan مورفينات الدم مورفون كواجب هالشيء أما العبال وسخر أما عتابته اللي قد شيء أما عين كان مورفينات الدماغ بيوبحية. دكتور محمد علي بار في كتابه المخدرات طبيب كاسي مسلم كاي وحكوت المامية ولبينه يهاي أقون بيولوجي أما أقون تدختر لماذا كوسو كوروني صدق يصدباتك كويحي كدم بيه حلي إلا هدا واحد دنيا أكتهي إلا لما بقوله مادو oo jirku uu soo daayo oo qadaayaadkaasi ku saabsan 200 maade ee baxtiga ku jira 40 kamida ayaa ilaa hadda la rumaysan yahay buu leeyahay taasiirka ay sameeyaan dabeetana wuxuu u daliishanayay uu leeyahay morfinaatu dimaaga la yiraahdo waxay ku bataan buu yiri ilaahay subxaanahu wa ta'ala si tabiici jirka bini aadamka ugu soo daayo qofku markuu alamka iyo dhibta dareemayo dabeetana waa waxyaabaha keena qofku inuu xoog aan u dareemin dhibaatooyinka gaar ahaan buu leeyahay mesela dumarku markay uurka leeyihiin ilaahay baa ku badiya subxaanahu wa ta'ala si uurkan iyo culayskiisa iyo dhibtiisa uga yaraado jidhkeedu wuxuu soo daayaa morfinaatu dimaag tiro badan oo maskaxdeeda stresska iyo waxaan ka ilaaliya waxay dumarka ugu badan yihiin bay yidhaahdaan marka ay umulayso oo aan laxdada ay ugu dhibta badan tahay haweenku ay morfinaatu dimaagu jidhku soo daayana ugu tiro badan tahay min nicam ilaahay si looga ilaaliyo foosha dhibteeda oo la ugu leeyahay haddii aan bahashaasi jirku aanu soo daynay gabadhada dib uma umushan malaha haddana waxa kaloo la ogyahay buu maanta sayniska horumarka uu gaadhay Chinese-ku irbada yar baa jiray dadka ku mudaan iyagaan qofka la suuxin oo aan lagu mudin tiyaatarka inta la geeyo suuxdin lagu mudin ay dhakhaatiirta Chinese-ku qof qalaan inta irbada yar oo tiro badan laga taago ayuu qofku sidii amaliyadii suuxitaanka kale ku dhacda dabeetana waa la qalayaa dareemina maayo midida lagu qalayo wuxuu leeyahay Dr. Maxamed Cali Baar waxa la ogaaday neerfayaashan gaarka ay ka mudayaan inay yihiin meelaha awaamirta bixinaysa in hormoonatu dimaaga kan ay soo bataan dabeetana qofkii alamkii aanu dareemaynin sheekhaasi wuxuu kitaabkiisa soo kale ku tilmaamaya waxa kaloo la ogaaday buu leeyahay iimaanka iyo cibaadada sida salaada iyo soonka iyo waxyaabaha la mid inay badiyaan qofka bini aadamka inay ku bataan morfinaatu dimaaga taas waxay sababtaa buu leeyahay qofka mu'minka ah inuu dhibaatada uga adkaysi badan yahay qofka aan iimaanka lahayn walidaalika wuxuu leeyahay waxa maanta aqoonta sayniska ay sheegaysaa marka qofku ay sii badato dikrigiisuba iyo alle xuskiisa iyo weynidiisu marka ku sii weynaato qofkaba xasiloonidiisu inay sii badanayso iyo dhibta dareenkiisa sida daraadeed waxaan leeyahay walaalkayga su-aashan soo weydiiyey intilaaqan min hada hadduu stress iyo wax la mid yahay waxaad ka cabsanaysaa waxaan leenahay alaa bidikri illaahi tatmainu alquluub waxay ka wariyaan zayn alcaabidiin ayaa waxaa la yidhi baa xanuunsaday adin baa bararay dabeetana waxaa la yidhi waa lagu qalayaa dhakhtarkii baa wuxuu yidhi bunji cab bunjigu waa baashan soomaalidu boocmadowda tidhaahdo soomaalida qaar baa imka walwalaaqdo cabbaa lay sheegayay geed boocmadow soomaalidu odhan jirtay iniyihii weeyaan bunji bay yidhaahdeen cab dabeetana wuxuu yidhi bunjigu maanka ma doorisaa haa baa lagu yidhi iga daba yidhi wax caqliga dooriyo dooni maaye salaad baan gelayaa idaa dakhaltu fi salaa buu yidhi fafcalu maa badaa lakum markaan anigu ilaahay sortaago idinku wixii aa qabsan kartaa qabsada in tukaday bay yidhahdeen intuu tukanayey ayaa la qalay bay yidhahdaan yani markuu ilaahay sortaagay iyo weynidiisa u xasuustay ayuu xataa midada dareemi waayey bay leeyihin calaa kulli xaal akhi lkariim waxaan odhan lahaa un awraadda iyo dikriga iyo alla kacabsigaaga badso insha allahu streskani way kaa yaraanayaan ogsoonowna de imtixaanka haddii la guulaysto iyo haddii la saaqido toona wax weyn oo aada weyday ma jirto waa wax iska caadiyo barida la geli karo mar labaadee wax saa looga warwaray inaan ahayn wallahu aclam
sheekh waxaan weydiinayaa haddii aan diido inaan gacan ku salaamo ama gacanta ka salaamo dhakhtar nin ah oo uu misana dhakhtar ii yahay oo uu jidka qaarkii uu gacanta taabsiinayo sida dhegaysiga wadnaha iga soo jawaab arrintaas adoo mahadsan. macnuhu waxa weeye gabar baa waxay leedahay waxay u tegaysaa dhakhtarkii ninkii nin dhakhtara marka waxay diidaysaa inay gacanta ka salaamto haddana wuu fiisataynayaa iyo hadhow wuxuu taabanahayaa meelo jirkii ka mida si uu u fiisateeyo. marka macnuhu waxa weeyaan salaantiisee ugu diidayaa oo gacantaan ka salaamayay maadaama jirkayga uu taabanayo mar kale oo uu fiisataynayo. macnuhu su-aasha saasaa maaragta moodaa inay qoran tahay. iska imtixaanun malaa layla damcayn in asilada fiqiga ka jawaabo iyadoo sheekh cumarna joogo. cumuuman waxaan odhan lahaa asalka inaan rag iyo dumarku istaaban waa asal fiican oo islaamiya kastoo laga yaaba culamada badhan inay ka murmuranto salaanta gaar ahaan. laakiin waxaan leenahay waxyaabo badan baa jira oo islaamku lidaruura kuugu baneeyey. haddii marka hore aada dhakhtar gabadha helayso iskaga tag ninkan iyo taataabashadiisa oo dhan. hadii gabadh la helayo dhakhtara ah weliba waxaan ogahay inkastoo dhibaatooyinku ay iska tiro badan yihiin yurub meelo badan oo kamid a in la dalban karo qofku dhakhtarkiisa inuu isagu doorto. hadduu dhakhtarna inuu kusoo baxo inuu odhan karo satisfied kuguma yihi kuguma faraxsaniye idhaaf haddaad tidhaahdo waa kuma faraxsanid u iska tegaya waad yeelan kartaa mid kale aad ku bedelato. laakiin walow ay dhacdaba kolley yurub meelo badan baa la jooga waaba laga yaaba tuulo yar aan dhakhtar kalaba lahayne hal nin iska haysto inaad joogtoba. marka hadday saasi dhacdaba ama dee duruufaad sayi-a baad ku jirto aan kugu simaynin inaad la sugo dhakhtarkii gabadha ahayd inta imanaysa iyo waxaas hadday jirtaba taasi waxaan leenahay de wixii daruuro kuugu banaaday daruuradu ay kuu banaysay yeel. laakiin de adna hasi siyaadinina hodhan intanba hadday badato tu kalaan kusii darayay watala gabadha dhakhtarku markanba jirkeyga wuu taataabanayay guriga markaan imaadana jirkeyga ma taataaban karaa waa maya. markii dantu iyo baahidu ay taalay unbuu taataabanayay inta aan dantu iyo baahidu jirin yuu taataabani wallahu aclam. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. walaal mustafa waxaa tiri dadku waxay u kala imtixaan iyo balaayo badan yihiin siday u kala iimaan badan yihiin. haddaba haddii arrintu sidaas tahay ummaddeena soomaaliyeed waxaa haysta arrintaas ama dhibka aan u wada jeedno haddaba ma dhihi karnaa dhibkaasi waa dembi dhaaf? waxaa jira imtixaanku ama balaayadu waxaan idhi dee maaha dhanka xun oo qura xataa nimcada ah waa nooc min alimtixaan baynu idhi nimcada lafteeda. kaasi waa mid. waa midda kale soomaaliya mushkiladeeda ama mushkilaadka dadka ku dhaca waa acmaashoodu ka ratibma yani ictibaatan isagama soo degdega uun ee acmaashay dadku sameeyeen camalku saalix hadduu iyo kor loo qaado nataa'ijda ka timaada iyo hadduu camalka kor qabanaya xun iyo natiijada ka timaada way kala gedisayin. kaasi waa mid. idan soomaali mushkilada haysataa horta min acmaalihim bay ka timid. dadku dhibtaasi mawaaqifta iska taagaan ama intay ka geystaanna waa ka mid. qofka mu'minka ah ee soomaaliyeed ee aan isagu dhib geysan ee waxaanoo dhibi soo gaadhay ee ilaahay ugu sabray ee mushkiladii intuu xalili karaya isku dayay inuu xalilay ficlan isaga ajar bay utahay. kii inkaarta qabay isagu dhibta warinayeyna ficlan habaar bay kusiitay. waxay ku xidhan tahay markaa qofku iyo mawqifku iska taagay mushkilada tan. qofkii mawqif fiican istaagayna khayr bay utay insha allahu tacaala. qofkii isagu mushkilada samaynaya ama dhibtan sii wadayna inkaar kale u siitay. laakiin haddii dadku wanaag doonayo bimajmuuci acmaalihim unbaa alla ku abaalmariya. alumma waa isku xidhanta majmuuca camalihim aakhira dadka calaa niyatihim lagu soo saara laakiin dunida acmaashooda waa isku xidhan yihin. waa kii nebigu ku tilmaamay doonta qoladii wada fuushay ee ninku yidhi baa xagga hoose aan dalooliya hadday kusii daayaanna dhammaan way wada halaagsan.